waxaad sawirkan ku aragto ayaa sheegi kara nooca hogaamiye aad noqon lahayd saaxiib haddaba adiga waxaan kaa codsanayaa in qacda koowaad aad sawirkan aragto humaagaad ku aragtay inaad ila wadaagto adigoo naftaada khiyaameen anna waxaan kula wadaagayaa shakhsiyadaadu cidda ay tahay saaxiib yal haddaba intaynaan u gudagelin barnaamijkana qiimaha badan waxaan kaa codsanayaa in like iyo follow aad rahood ku soo biirto asxaabta nagu xidhan haddii dhanka YouTube aad nagala socoto subscribe dhew nagu soo biir sawiradu waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan ee siri kara indhaha waxa marar badan dhacda in shay aad garanaysaa uu sameeyo sawir ama humaag wax kale u eg oo ka duwan haddaba waxaa jira dad iyagu ka shaqeeya humaagaas ay maskaxdu sawiranayso iyo xaaladaha nafsadeed tusaale ahaan humaaga koobaad ee sawirkan indhaha ka qaataan wuxuu sheegayaa shakhsiyadaadu noocay tahay sawirkan hoose aad arkayso waxaan ka soo qaadanay wargeys ka baxay Ingiriiska The Sun oo isaguna ka soo xiganayay joornaalka The Mind Journal marka koobaad sawirkan eegtaba waxa ku muuqanaya sawir aanu madow ku jirin laakiin marka aad u sii fiirsato waxaad arkaysaa in sawirku ka duwanaanayo kii aad qacdi koobaad ba aragtay haddaba wargeyska Mind Journal waxa uu sheegay in sawirka aad marka koobaad ba aragtay uu yahay kan looga qiyaas qaadan karo qofka tahay haddii qacda koobaad baad aragtay lamaane da' oday iyo islaan waxay calaamad u tahay inaad tahay dadka abuur ahaanba jecel inay arrimaha si guud u qiimeeyaan waa aanay hoos uga dhaadhicin tafaasiisha hoose noloshooda qudheedana habkaas oo kale u maareeya waa tilmaam fiican oo qofku inta badan inaanu isku dayin inuu u dhaadhaco waxyaabaha macandarada ah balse aad u jecel inuu yahay qof si guud arrimaha u qiimeeya waa qof istiraatiijiya kaalin muhiimana ka ciyaara kaalmaha hogaamineed ee maamulka guushiisa waxyaabaha sababta u noqonaya waxa ugu horeeya inuu yahay qof sawirka guud wada arkaya oo aan ku mashquulin qayb iyo tafaasiil hoose oo aan macno badan u sameeyeen haddaba haddii aad dabeecadda sida guud aad u aragto waxaad ku wacan tahay hogaamiye kooxda labaad marka aad muuqaalka u fiirsato waxaad arkaysaa inay ku qorsoon yihiin 3 qof 2 nin oo soo horeeya oo ag fadhiya iyo gabar xagga dambe ka muuqata haddii ishaadu koobaadba 3daas qof wada aragtay waxay calaamad u tahay inaad tahay shakhsiyad jecel waqtina geliya faahfaahin hoose aadna ugu dhaadhaca arrimaha hoose ee yaryar waqtina geliya arrimo badan oo aanay dadku inta badan dhaadanayn si dhow ayaad arrimaha ula socotaa dhugmana u leedahay waxa reerahaaga ka socdo dhan waana adagtahay in arrimuhu ku dhuuntaan ama adigoo aan dareemin ku dhaafaan maamul ahaan waxaad ku fiican tahay qorsheynta arrimaha u baahan tafaasiisha hoose oo loo daadego marka ay sidaas tahayna waxa tahay maamul fiican saaxiibayaal adigoo run ka sheegaya talo kooxdee ayaa tahay anigu markii koobaadan arkayba waxaan ahay kooxda koobaad oo markii waxaan arkay oday islaan iska soo horjeeda oo da' laakiin marka aan saa'id ugu fiirsaday markii dambe ayaan dareemay in sawirku intaaba ka sii mugweyn yahay saaxiibayaal intaan barnaamijkan kan xiga ku kulmi doono waxaan leeyahay nabadgelyo